nusqaamin kii qoraha ahaa waxaa la yidhi si caadilnimo ha ku qoro فليكتب حقه والمساكرين وليملل هميريو الذي كي عليه كركيسة الحق حقه وهاري كأنه أميريو متعن فرها وحا وقرهيو إلهي وحليه سبحانه وتعالى هميريو كنتين تقاطين مدينك حق الغياسي كاسة أميريو هذا النظام كافي عجائب كيسي حيث كيسة weliba kolka aayaadkan ay soo degayeen adduunku iyo qarnigu siduu ahaa 14 qarni muddo ka soo meertay ayay aayaadkan soo degayn oo ilaahay sida uu leeyahay waxyaalka maanta lagu mucaamaloodanayana oo xagga daynkii mucaamalashada meesha waxay dheer weeyaan marka ilaahay wuxuu leeyahay kolka ninkaas wax qorahayo kan u meerinhaya waa kan daynta qaatay ee xaqa lagu leeyahay maxaa yeele meerintaas u meerinhayo qirib oo qiranhayo weeyaan xaqii وليملل هميريو الذي كي عليه كركيس الحق حق وهاري وحق الغياشي كاس هميريو قرها وحب قرهيو ويتق الله كعبصده ربه ربي جيساه ربي كعبصده كاوح ميرينها ينفيسه حق الغنيه ميرين توقي ميرينها يو الله كعبصده نفتيسه ويصن نصطامين ولا يبخس يوصل نصطامين منهم من الحق شيئا حوت يوصل كنصطامين كي قرأها وحالي يرسي على لنها بقر وكرسيمو ينصطامين من الله كي وحميرين هي يحق الله لها أصونا سحقها كميريو والله وعصره وميرين تاسو أميرين هي ويوصل نصطامين إلا أثر وحك سورو بإنه نصطاميو وياني حقا لقولي يهي كنو حكا نصطاميو أنه كردية أساق الله ملها محايري ووحا أساق لقولي قفنا محوها أو سدلمي أساق وحي سمصار أو وحي سقوم كردية وكا دلمي أساق وحي الله ربقا يوحوية إنه نصقانيو فكيله هو كريبا ياي وحوليه ولا يبخص يوصل نصقانين منهم من الحق حق لغلها شيئا يوصل كالنصقانين شيئا سق حريا لغاده فإن كان هدئ يهي الذي كي عليه كركيس الحق حق وهاري سفيها وضقن عقل ناقص هدوه يهي أو أمثل ضعيفا كتاكترا إلمعه عرور أما الدقوبي أو الدقنمضة ترتيب أم حلق جرنين أو أمثل لا يستطيع أسكرين أي ملة إنميريو وهذا الكأياب كحرا أما ننك وحقرها إس هذا الأقونين أما سكروا بهذا الكوب عجزين إنه أصاب ميريو أو لا يستطيع أن يمل هو أصاب إنه ميريو وسنكرين فيمل هميريو وليس بالعدل سعاد لما ميريو وحان صانيري ولا تفير آيات تكسري هذا الكود تحياني دين خطات المعاملة وطان وقاكين وقاك كلا وكدين قادنا يهلا قرأ مد قرأ هو قريقان سعاد لما حكو قرأ kaa qoraha ah kolkii loogu yeero waxa ka noo qor la yidhaahdo yuusan diidina ha qoro waxa u meerinhaya markuu qorahayana ha ahaado kii xaqa lagu lahaa ka xaqa lagu leeyahayna allaha ka cabsado yuusan xaqaas waxba ka nusqaaminin marka kaa la yidhi ha meeriyo ee xaqa lagu lahaa waxaa surowda inuusan nin caqligiisu kaamil yahay uusan ahayn hadduu sidaas oo kala noqdo ee safiih uu yahay qof caqli naaqus ah haddii uu yahay doqon oo caqliga ka kala dhinman yahay amase uu yahay qof daciif taag daran daciifnimadaas waxaa la wadaa laba xaalo midkood inuu yahay qof sali ahoo aan weli wax kala garanin kaasaaba xaqii yaale oo markaa waxa daynka loo qaadi waxa weeyaan qof oo sali ahoo saqiir ah ama qof oday ahoo ama duqoobay oo aan duqowgaas dadbi wax la kala garanaynin hadduu sidaas uu ku taagdaran yaho daciif sida uu ku yahay labadaas xaala midkood hadduu yahay amase uusan karinba inuu asagu naftiisu wax meeriyo naftiisu qofkaa qoraha ah inuu u meeriyo ma uu karo karad la-aantaas waxyaalo badan ayaa keeni karaya hadalkii baaba ka xiran ama markaasuuba jiran yahay oo hadalka soo baxaynin amaba way ishadal aqooninba qofkaa qoraha ah iyo asaga ayaan is afgaranayn
kastaba ha ahaato karid la-aantaasi hadduusan naftiisu inuu u meeriyo karaynin walow daciif kalabayu ahaanin doqon oo caqlinaaqsan ayuusan ahaanin be hadduusan inuu meeriyo karin ha meeriyaa laleeyahay weliyuhu weligiis ha meeriyo qofkii asaga weligu u ah kolkuu sabiga yahay ama muxuu aha safiiha uu yahay amaba kolkaas si kale u kari waayo qofka u wakaasho wakiil uga dhigto ama qofka mutarajimka ee turjubaanka ka ha meeriyo intaba meesha ayay soo gelayaan falyumlil ha meeriyo weliyuhu weligiisu bilcadli si caadilnima ha ku meeriyo qofka asaga markaa ka wakiila ama turjumaankiisa oo muxuu aha dhexdooda haddayna is afqoonin u kala turjumaanayo kaas ha meeriyo oo qofka wax qorahaya ha u meeriyo si caadilnimo ah ha ugu meeriyo nusqaan iyo ziyaada midna lahayn isla waqtigaas marka waxaa lagu mucaamaloonhayo waxaa la qorahayo wastashhiduu markhaati geliya shahiidayni laba oo markhaati oo min rijaalikum raggiina ka mid ah ayadoo sidaas daynkii loo qorahayo oo sidaa loo adkeeyey oo kii daynka qaatay iyo kii qoraha ahaa intaba dardaaranka adag la siiyey iyo cabsigelintaas haddana ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala markhaatina u yeelo meeshii laba nin ee markhaati ah oo waxaa la kala qoranhayo daynkaa la kala qaatay ee la kala qoranhayo golajoog u ah labadaas ruuxna markhaati uga dhiga wastashhiduu markhaati geliya shahiidayni laba markhaati min rijaalikum raggiini ka mid ah sidaa ayaa ilaahay leeyahay haddaba rag iyo haddayna meesha jooginna ilaahay aayaadka ama jumlooyinkaa soo socda ayaa naloogu caddaynhayaa cashirkeena samaanta intaasuu ku ogyahay wasalaamu calaykum waraxmatullah cashirkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 282 dhexdeeda aayaddii dheerayd ee mucaamalada deynta lagu mucaamaloonhayo ku saabsanayd ayaan kusoo jirnay waxaa naloo soo sheegay farid la isfarahayo deynka kolka lagu mucaamaloonhayo in la qoro ruuxa qorayana si caadilnimo ah uu ku qoro waxa u meerinhayana uu yahay qofkii xaqa lahaa haddii qofkii xaqa lahaa meerinta uusan karin si caqli darro darteed ama caruurnimo ama se aqoon la-aan kaleetoo xagga afka ah ama si kaleetaba uga cadsiyo qofka weliga u ah ama wakiilka u ah ama turjubaanka u ah inuu u meeriyo qofka wax qoraya si cadli ugu meeriyo marka intaasba naloo soo sheegay ilaahay wuxuu amray in markhaatina meesha uu joogo oo wuxuu leeyi ka qor ku dhow markhaati geliya shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum raggiina ah laba ragga ka mid ah ee markhaati ah ama markhaati uga dhiga deynkaa la kala qaatay iyo qoriddaa la qorahayo deynkaa la kala qoranayo marka halkan waxaa naloogu caddaynayaa ayadoo axkaamta mucaamalada deynka lagu mucaamalooda ku saabsanayd markhaati gelintiina weli lagu dhex jiro haddii laba nin meesha ay joogin fa in lam yakuunaa hadday ahaanin oon la helin rajulayni laba nin fa rajulun nin iyo wamra'ataani laba haween ahaa yashhadaani markhaati kacaya oo minman ka mid ah tardawna aad raali tihiin min ashuhadaa'i shuhadada aad uga raali tihiinoo markhaati kaca raalli aad uga noqoteen ee caadiliina an tadilla karaahata an tadilla inay lunto ixdaahumaa midood ay lunto noqideeda darteed ayaa haweenkaa laba looga dhigay oo midu hadday ilowdo fatudkira ay xusuusiso ixdaahumaa midood ah tii xusuusnayd al ukhraa tii kale halmaantay ay xusuusiso haddaba ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala markhaati geliya laban oo ragga ka mid ah markhaati uga dhigaa waxaa la kala qoranaya ee deynka lagu mucaamaloodaya laba nin haddayna jooginna waxaad markhaati uga dhigtaan hal nin iyo laba haween ah oo ka mid ah ninka iyo labada haweenkaaba kuwa aad uga raalli tihiin markhaati kaca kuwa markhaati kaca looga raalli noqonayana waa dad warkooda lagu kalsamaan karo ee caadiliinta weeyaan oo muslimiin ah markhaati kaca looga raalli ahaanayana markhaati xambaarka iyo hadhow markhaati furidda labadaba way ku jirtaa hadda markhaati gelintan waa markhaati xambaarkii waxaana looga qastayaa hadhow haddii khilaaf u yimaado in ayagii loo noqdo oo markhaatigii ay ogaayeen xambaareen ay furaan saasaa
marka laba ruux oo haween ah iyo hal nin ah ood uga raali tihiin markhaati kaca oo hadhow markhaati furkooda lagu kalsamaan karo markhaati geliya haddaan laba nin ayna joogin. markii sidaa ilaahayna yidhi labada haween waxa la isugu daray ayaa ilaahay cilleeyey subxaanahu watacaala an tadilla karaahata an tadilla ama an tadilla khawfa an tadilla ama an tadilla lianlaa tadilla inayna lumin ama in ay lumi ixdaahumaa midood oo ay halmaami karayso oo marka midood haddii ay halmaanto oy ka lunto dariiqii xaqa ahaa fatudkira ay xusuusiso ixdaahumaa midood ee tii xusuusnayd al-ukhraa midda kale ay xusuusiso. macnaha meesha laysugu darayana waxaa weeyaan had iyo jeer sida qaalibka ahaan jirtay ragga ayaa mucaamaladaas xagga beecshirada ayaa u badnaan jiray, haweenku marka uma badnaan jirin. dadkuna qaaliban waxa ayna ku dhex jirin oona markaa ayna mucaamaladiisa ayna u badnayn. maridda ama ogaalka ay ogaadaan waxay noqonaysaa un musaadafo waxa la yidhaahdo oo muwaafaqid marka ay soo waafaqday oo kaleeto. marka qofku wuxuu sidaas oo kale kusoo waafaqana uusan awal mucaamaladooda ku dhex jirin markaasna uusan sii wadinna waxaa dhici karta inuu iska halmaamo. sidaa ayaa haweenka markaa laysugu darayaa maadaama ayna hawshaas ayna u badnaan jirin oo markaa ayna muxuuha beecshirada iyo mucaamaladaas ayna u badnaan jirin. markaa sidaas ayaa laysugu daray oo marka ilaahay wuxuu leeyahay haddii laba nin la waayo hal nin iyo laba haween ha markhaati kaceen ood ka raali tihiin islaamnimadooda iyo caadilnimadooda aad uga raali tihiin in ay lumaysa midood oo middaa hadday lunto tii xusuusnayd ee markaa taa luntay xusuusanayso xaqii u soo gelinayso. markii sidaa lays amray haddana dadka markhaati furka ama markhaati xambaarka loogu yeerayo ayaa looga digayaa waxaa loogu yeeray markhaati xambaarka ama hadhow markhaati furka inay diidaan ayaa loogaga digaya. walaa ya'ba yayna diidin ashuhadaau kuwa markhaatiyaalka ah idaa waqtigii maa ducuu loogu yeero yayna diidin baa ilaahay leeyahy. markhaatiga kolkii loogu yeero oo la yidhaahda waxaan ayaanu kala gadanaynaa ama ku mucaamaloonaynaayo kaalay golojoog noo ahaado markhaati ka ahaada, taasu waa markhaati xambaarka ama hadhow markii khilaaf u yimaado kuwii golojooga u ahaa loogu yeero la yidhaahdo waxa aad ogeydeyn kaalaya ka markhaati fura yayna diidin baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. haddaba diidada markhaatiga ay dadkii ay diidaan waxay ogaayeen inay furaan dambi bay ku noqonaysaa. waxaa isla mid ah markhaatigii oo sidii loo ogaa si aan ahayn loo sheego oo shahaadatu zuurka la yidhaahdo iyo arrinta la qariyo oo la diidaba in la furo waa isku dembi. walaa ya'ba yayna diidin ashuhadaau kuwa markhaatiyaalka ahaa yayna diidin idaa maa ducuu haddii loogu yeero. yeeridaas loogu yeerayana waa labadii waxyaalood midood markhaati xambaarka hore oo waxaa lagu mucaamaloonayo inay golojoog u ahaadaan loogu yeero iyo markhaati furka dambe oo waxay ogaayeen inay furaan loogu yeero. weliba midaas dambe aad u sii adag. walaa tas'amuu hanoogina an taktubuuhu in aad qortaan mucaamalada iyo deynka in aad qortaan haka noogina saqiiran yaraaya oo kabiiran weynaayaaba ilaa ajalihi muddadiisa intii laga gaaro. markii arrimahaasi axkaamtaas oo dhan nala soo faray guud ahaan ayaa markaas dadkii mucaamaloonayay mujtamacaha waxaa loogu adkaynayaa qoridda ayada inay jirto. ilaahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ha ka noogina. matalan mucaamalada sidaas oo kaleeta iyo kala dayn qaadadka sidaas oo kaleeta waxaa laga yaabaa dadkii ku mucaamaloonaya kolka qaarkood qoridii inay muxuuha ka yar caajisaan mucaamalada badnaanteed oo marka iska dhaafaan wax badan ayna qorin. taa marka ay keento hadhow khilaaf iyo dood iyo muramo oo muxuu aha xaqii intuu ahaa ama muddadii intay ahayd laisku khilaafayo. marka ilaahay khilaafkaas baabi'intiisa aslanbaba waxyaalkaas waxa loo jiraynayo waa inaan hadhow khilaaf imaanin oo khilaafkaas uusan ahaanin mid midnimadii waxyeelaynaya iyo walaalnimadii waxyeelaynaya ama xuquuqdii dadkaba ay ku dayacmayso oo ku lumayso. ilaahayna taa dooni maayo. dadku wuxuu rabaa ilaahay inay walaalo ahaadaan, inay walaalnimo ku noolaadaan, midnimo inay ku noolaadaan, midna midka kale xuquuqdiisa uusan ka dayacin. walaa tas'amuu hanoogina oo amaba ha ka dhaqsina oo ha ka caroonina an taktubuuhu inaad qoraysaan wixii aad ku
mucaamaloodeen kama arkan moogina ha ka caroonina. saqiiran yaraaya daynka aad ku mucaamaloonaysaan qoridda u baahan mid yar hayayaa oo kabiiran mid weyn hayaaba ilaa ajalihi muddadiisa intii laga gaaro. markii intaasoo axkaama nala soo faray waxa sidaa loo geeyey ayaa marka haddana naloo cilaynayaayo naloo sheegaya daalikum kiina laydin soo faraa aqsadu cadli ahaasho badan cindallahi ilaahi agtiisa wa aqwamu toosin badan una kaalmayn badan lishahaadati markhaati kaca wa adnaa asagaa u dhawaasho badan allah tartaabo inayda shakiin. 3 waxyaalood baa markaa lagu celiyey. waxyaalkaa laydin soo faray ee deynkaa lagu mucaamaloonhayo qoridiisa ah markii la qoro markhaati loo yeela ah. kolka la qorahayo ninka qorahayo nin qoridda iyo habka qoridda yaqaana uu yahay laguna kalsan yahay. kii xaqa qabay uu u meerinayo. adkayntaasoo idin waxa sidaa la idinku farhayo waxay tahay inay sidaasu cadliga ay tahay ba ilahay leeyi. daalikum kiina lasoo sheegaa aqsadu cadli ahaasha badan cindallahi ilaahi agtiisa kaasaa cadaaladdu ay tahayo cadaaladdu ay ku dhismaysaa oo hadhow khilaafka iyo muramaha iyo xaqii oo nusqaama yarayn karaya. wixii dadka xaqooda ilaalinayana oo qof walba xaqiisii siinayana kaasaa cadligii ah. cadliguna ma aha un korkii laiskhilaafo oo muramadu u dhaco oo maxkamada la yimaado kaa keliya ka bilaaban maayo. aasaaska marka horeba qallacu ka imaanaya la toosiyo taasaa cadliga muxuu aha salnigiisaba ah. meeshii khilaafku ka imaan lahaa kolka horeba si uusan khilaaf uga imaanin in laga sameeyo oo saldhigga cadaaladda looga dhigo sidaasaa cadaaladdu ay ku dhismaysaa. haddaba qoridda iyo markhaati kaca mucaamalada horeba sidaa loo sugayo taasaa ah ilahay agtiisa ducaadilnima ah. daalikum kiinaasa aqsadu cadli ahaasha badan cindallahi ilahi agtiisa taa mid weeyaan. wa aqwamu asagaa toosin badan lishahaadati markhaatigana toosin badan. markhaati kaca iyo dadka markhaati furayana taasaa xaqa ku toosin badan oo dadkii meesha kula jooga u ahaa wixii qoraa haddii waxaas wax qoran ay yihiin oo ayaguna ay qortaan iyo wax qoran haddayna ahayn isku mid ma aha. wixii haddii la qoro hadhow markhaatiga way ku xusuusanhayaan kaalmayna u ahaanaysaa wayna toosinaysaa iyo xaqiinay ku toosinaysaa. sidaasna waxyaalkaas u qora waa lidin leeyi oo waa cilo labaad. wa adnaa ayada u dhawaasha badan allah tartaabo inaydan shakiin hadhow xaqu intuu ahaa muddadiisu intay ahayd noociisa iyo habkiisu sida u ahaa inaydan shakiinna taasaa u dhawaasha badan ee qoridda iyo markhaatigaas baad u yeeshaan. maxay wixii haddaan la qorin haddaan markhaati loo yeelin waxaa imaan karaysa in la shakiyo intii u ahaa ama laisku khilaafo ama muddadiisu intay ahayd la shakiyo ama noociisa iyo habkiisu sida u ahaa la shakiyo. ilaa an takuuna tijaaratan tijaaro inay ahaati mooye mucaamaladaas tijaaro inay tahay mooye xaadiratan xaadir ahoo madal aan lahayn tudiiruunaha aad wareejinaysaan baynakum baynkiina yowmiyan tijaarada ee saas aad u kala qaadqaadanaysaan inay tahay mooye oo falaysa calaykum markaa dushiina ma ahaanin junaaxun dembi allah tagtubuhaa inaydan qorin. waxaa la qoraya waa wixii muddo dambale ee dayn ah ee tijaarada markaasba la isdhaafsanhayo oo lacagteediina ayna muddo damba ahayn taas dembiida kama saarna haddiidan qorin. wa ashhiduu markhaati geliya idaa tabaayactum markaad wax kala gadanaysaan. gadashada sidaasahee dayn aan ahayn nafsadeeda inkastoo qorideedii la cafiyey haddana markhaati u yeela ilaahay leeyahy nafteeda si aan khilaaf iyo waxyaalo kale uga imaanin. markhaati gelintaasna culamada qaarkooda ama say u badan yihiin sunno weeyaane waajib ma ah. qaarna waajib weeyay bay yidhahdeen. cashirkeena maanta intaasu ku ogyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullah. cashirkan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 282 dhammaadkeeda. waxaan kusoo jirnay aayaddii dheerayd ee ku saabsanayd mucaamalada deynta lagu mucaamaloonhayo. axkaam badan oo xaalka ku saabsanna waa naloo soo sheegay. haddaba halkan waxaa naloogu sii caddaynhayaa qofka qoraaga ah ee dadka deynta ku mucaamaloodeen u qoraya iyo kan markhaati kacahaya nahyin ama reebid laga reebahayo inay ayagu wax
dhibaan ama ayaga la dhibo. haddii taasu dhacdana in ay tahay faasiqnimo iyo dhaca ka bixid ay tahay, markaa waxaana lagu tirtirsiinhayaa cabsida ilaahay ayaana lagu tirtirsiinhayaa. dabadeedna waxaana loo caddayn doonaa haddii markhaati la waayo amase ruux kaatib oo qoraa'a la waayo sida arrintu ay ahaanayso, ama dadka qaarkood qaar kaleba iska aaminaan oo ayagoon qorin waxba oo kaatibkii iyo markhaatigii aan samaysanin, qaarkood qaarka kale shay aaminsan yihiin ay deynta u siiyaan waxa laga doonayo. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, walaa yudaara yaan la dhibin kaatibun mid qoraa ah yaan la dhibin, walaa shahiidun mid markhaati ana yaan la dhibin. ama walaa yudaara yuu dhibin kaatibun mid qoraa yuu dhibin, walaa shahiidun mid markhaati ana asna yuusan wax dhibin. haddaba labada macnaba waa lagu laqbeeyaa. kolkaa macnaha hore ku laqbayno, walaa yudaara yaan la dhibin kaatibun mid kaatiba yaan la dhibin, midka qoraaga ah ee labada ruux ama labada hay-adood waxa ay ku mucaamaloonhayaan ee deynka u kala qoraya yaan la dhibin baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. dhibku nooc kastaba ha ahaadee waxaa ka mid ahaan kara dhibkaas wixii ujro ah oo markaa lagula heshiiyey in aan la siinin ama xaqiisa laga nusqaamiyo ama waxyaalo kaleetoo dhibaato u geysanaya loola yimaado yaan la dhibin baa ilaahay leeyahay kaa qoraaga ah. kaa shahiidka ahee markhaatiga ana yaan la dhibin, nooc kasta dhibkaasu ha ahaadee. dhibkaa waxaa ka mid ahoo lagu miisaaliyaa haddii ninkaa markhaatiga furaya markii hore markhaatiga looga yeedayo meel ku kallifaysa kharaj inuu bixiyo. matalan meesha la rabo markhaatiga inuu ka furo iyo meesha looga yaray ay kala fog yihiin, waa inaan asaga takaaliiftaa la saarin ee laga guda takaaliifta. haddii takaaliifta asaga la saaro dhibid la dhibo ayay noqonaysaa. sidaasaa mufasiriintu ku miisaaliyaan. ama waxaad oranaysaa walaa yudaara yuu dhibin kaatibun mid qoraa ah naftiisa yuusan dhibin, oo labada ruux oo uu wax kala qoraayo yuusan dhibin. xaqa nusqaamintiisa uu nusqaamiyo oo markaas uu ku dhigo kii xaqa lahaa, ama kordhintiisa oo uu ku dhigo kii xaqa lagu lahaa, ama diidaba uu diido asagoo meeshii inuu qoro looga baahan yahay uu diido. dhibid asaguna uu la yimid weeye yuusan dhibin baa laleeyahy. walaa shahiidun mid markhaati ana yuusan dhibin, oo markhaatiga furidiisii iyo xambaaridiisii miday ahaataba midna yuusan dhibin. kan xaqa leh iyo kan xaqa lagu leeyahay midna yuusan dhibin. dhibiddaa waxaa ka mid ah inuu diido kolka horeba markhaati furka, ama uu qariyo ama uu bedelo siday ahayd si aan ahayn u sheego. nooc kastaba dhibka ha ahaadee asaguna yuusan dhib meesha la imaanin. haddaba meeshii isdib baa la diidahayaa. labada dhan midnaba inuu ka yimaado lama ogola. qoraaga iyo markhaatigaas kaa markhaatiga ah ayagu yay wax dhibin, ayagana yaan la dhibin. markii sidaa ilaahay uu caddeeyey, ilaahay wuxuu leeyahay wain tafcaluu haddaad fashaan waxaa laydinka reebahayo haddii aad fashaan ee isdhibidda ah, fa innahu asagu fusuuqun dhaca ka bixid weeyaan, laaxiqun bikum adinkaydin haleelay. dhaca ka bixid iyo fisqi adinku aad ku dhacdeen ayay noqonaysaa. waxay halkaa laydinka reebahayo haddii aad ku dhacdaan ad samaysaan oo wixii laydin farahay aad ka tagtaan, waa dhaca ka bixid iyo fisqi adinkaydin haleelay baa ilaahay leeyahy. wattaqullaaha alla ka cabsada oo daacada ilaahay ha ka bixina. waxa ilaahay idin farahayana fartoona, waxa ilaahay idinka reebahayana ka hara. taabaa dantiinu aakhara iyo dantiina adduunyada ay ku sugan tahay. wayucallimukum allahu ilaahay waa idin barahayaay diintiisa sharaaicdeeda iyo axkaamteeda iyo aadaabteeda iyo dantiinu siday tahay ayuu idin barahayaa oo idin tilmaamahayaa. rabbi ka cabsado sidaas ilaahay idin barahaya oo raaca. wallaahu ilaahay bikulli shayin shay kasta caliimun kii og weeya. ilaahayna wax ka qarsoonaan mahayaano. kii amarkiisa fartoomahaya ka cabsanhaya iyo kan ka leexleexanhaya labadaba ilaahay waa ogsoon yahay. marka ka digtoonaada inaad wixii ilaahay idin farahaya aad ka leexleexataan idin fartoomi weydaan, wixii ilaahay idinka reebahaya inaad ku dhacdaan ka digtoonaada. ilaahay waa idinla socdaayo waa idin og yahay. wain kuntum haddaad ahaataan calaa safarin safar dushi oo walan tajiduu idin helin kaatiban qoraa idin helin, fa rihaanun rahan maqbuudatun oo la kala qibloodaa tastawsiquuna biha aad ku kalsoonaanaysaan.
lagu qori lahaa ee lagu kalsamaan lahaa ay waayaan. Rahan oo la qibdaysiiyo oo la kala ninkii rahanta ama deynka laga qaaday gacanta loo geliyo la qibdaysiiyo, taa ayaad ku kalsoonaanaysaan. Rahantu waxaa weeye qofka deynta laga qaadanayo wax qiimo leh loo dhiibo oo hadhow haddii deyntii loo soo celin waayo waxa ayaga u qaato way u gato. taasaa rahanta lagu joodaa. marka haddii qoraagii la waayo oo safar aad tihiin oo ruuxii wax idin kala qori laha aad weydaan, deynna ay meeshii timaadood ku mucaamalootaan kala deyn qaadasho, rahan oo la qibdaysiiyo ruuxii rahanta deynka laga qaatay, kaasaad ku kalsoonaanaysaan oo hadhow xuquuqdii lagu ilaalin karayaa. haddaba rahanta waxaa lagu qayday, safar baa lagu qayday. kolkii sharciga mabaadidiisa guud loo noqdana waxaad helaysaa in culummada islaamkuna isku waafaqsan yihiin in rahanta ay iska bannaan tahay ayada oo safar la ahayn. xataa nabigeena sala allahu calayhi wasalam markuu dhimanayay waqtiyadaas waxaa jirtay caburbureedkiisii inuu rahan u yaalay ee nin dayn uu ka qaatay uu u rahan dhigay isagoon safarna ahayn. marka waa wax sugnaaday ee sunnada ku sugnaaday ee aasaarta in rahanta ay iska bannaan tahay iyadoon safar ahayn. halkaa marka aayaddu waxaad moodaa in ay safar ku qayday, wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaan maqbuuta. haddaba waxaa sidaa loogu qaydayaa qoraaga waayidiisa la waayo ayaa un u badan in muxuu ahaa safarka waqtiga leeyahay ama aalaabtii wax lagu qori lahaa la waayo. sidaasaa markaa loogu qaydahayaa. tan kalena sunnada iyo aasaartii mabaadida islaamka ayay ku sugnaatay in rahanta iska bannaan tahay iyadoo la nebi yahay. fa in amina hadduu aamino bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale uu aamino oo waxba qorid ah uusan ka samaysanin deynkii uu bixiyey, rahanna uusan ka qaadanin rahan la-aan iyo qorid la-aan deynkii uu iska siiyo, falyu'addi ha gudo alladii kii u'tumina la aaminay amaanatahu amaanadiisa ha gudo, amaanadii lagu aaminay ha gudo. walyattaqi llaaha allaha ka cabsado, rabbahu rabbigiisa ha ka cabsado oo khiyaano yuusan meeshii keenin. haddii meeshii wax qoraal ah usan imaanin, rahan qaadasho ayna imaanin, qofkii xaqa lahaa ee deynka bixinayay kalsami uu ku kalsan yahay qofka deynka ka qaadanaya uu isaga siiya deynkii wax qoraal oo iska reebay ayadayna jirin, ilaahay wuxuu ku tirtirsiinayaa kan deynkaa qaaday ee la aaminay amaanadii inuusan hallaynin. falyu'addi ha gutaa laleeyahay alladii kii u'timina la aaminay amaanatahu. haddaba amaanadaas waxaa loo wadaa sida loo aaminay wax u guto. ee deynku amaanadii wax gaar ahaa lagu magacaabaayo madmuuna ayadu ma aha, laakiin deynku madmuun weeyaan kol kasta. marka waxaa amaano loogu magacaabahayaa aaminida la aaminay darteed baa loogu magacaabahaya amaano deynkii. rabbiga ha ka cabsado, walyattaqi llaaha alla ha ka cabsado oo sida loo aaminay waxa u oofiyo oo xaqi ha u oofiyo, yuusan nusqaan iyo khiyaano iyo khilaaf markaas dabadeed keenin. rabbahu rabbiga ha ka cabsado lagu shaakiraya, rabbigii barbaariyey ha ka cabsado oysan khiyaano meesha keenin. haddii la aaminay qoraal la-aan, rahan la-aan, markhaati la-aan, matalan haddii deynkii lagu siiyo sidaas loo aaminay, amaanada yuusan khiyaanin, ha gudo amaanadaas. allaha uga cabsado inuu amaanadaa khiyaano rabbigiisa ah. walaa taktumu shahaadata markhaatiga qarinina, waman yaktumhaa qofkii qariya markhaatigii fa innahu asagu aasimun qalbuhu qalbigiisu kii dambaabay wey. wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimun kii og weeyaan. mar kale ayaa markhaatigii naloogu soo celinaya. horay waxaa naloogu soo sheegay in markhaatiga la doonayo markhaati loo yeelo waxaa la kala qoranhayo ama waxaa la kala gadanhayo ama waxaa lagu mucaamaloonhayo. waxaa lagu soo adkiyey markhaatigaas inayna diidin markhaatiga oo markaas ay sidii markhaatiga looga doonay ay u fuliyaan, hadday xambaarin tahay markhaati xambaar iyo hadday markhaati fulin tahayba. mar kale lagu soo celinayaa laleeyahay markhaatiga ha qarinina. dadka markhaatiga qaadayo markhaatigaad xambaarteen markaad furaysaan ha qarinina markhaatiga asaga ah. oo
waxaa qarintaa la mid ah diidadii la diido ama bedelid la bedelo oo sidii arrintu ahayd si aan ahayn loo sheego. Saa samaynina marka cabsiis iyo goodi baa markaa la raacsiinaya qofkii qariya. waman yaktumhaa qofkii qariya markhaatigii siduu ahaa aan u sheegin, diida, bedela, qariya, qofkii sidaas sameeya fainahu sha'nihi ama fainahu asagu aasimun qalbigiisu ku dambaabay weeyaan. macnaha dembi qalbiga ka makansaday ayuu dambaabi. haddaba meesha la oran laguu dambaabi ayaa qalbiga laga cabiray. qalbigiisaa dambaabaa laleeyahy. qalbigu waa meesha qofka oo dhan xukumaysa weeyaan. oo hadduu fasaado qofka oo idil acmaashiisa ay fasaadayso, hadduu wanaagsanaadana qofka acmaashiisii oo dhan iyo hawshiisii oo dhan ay wanaagsanaanayso. marka qalbigiisii baa dambaabi baa laleeyahy. hadal aad u xildheero balaada ay ku jirta weeyaan. qalbigiisaa dambaabay oo dembigii baa qalbigiisa makansaday. wallahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimun kii og weeyo wuu la socdaa. waxaad qarisaan, waxaad bedeshaan, haddaad muxuu hadiidaan, wax alle waxaad samaynaysaan oo dhan ilaahay wuu og yahay. marka markhaati qarinta ama markhaatiga sidaha laga bedelo dunuubta waaweyn ayay ku jirtaa. maxaa yeelay cadaaladii bay habaabinaysaa. wax alle wixii cadaalada habaabinayna mujtamacii bay beginaysaa. qadar weyn bay markaa keenaysaa. dunyadii iyo diintii labadiiba meesha way ku dayacmayaan. markaas qofkii sabab u noqda dembi weyn buu gelaya. ilaahay waa u ciqaabaya. lillahi maa fi samaawaati wamaa fi lard. lillahi ilaahay wuxuu leeyahay maa fi samaawaati samaawaadka fiigooda wixii ah iyo wamaa fi lard arlaa dhexeeda wixii ah. wax kasta asagaa iskale. marka waxa laydin faraya adinkay dhan idiin tahay. asaga waxba idinkagama baahna. wain tubduu haddaad muujisaan ma aad muujisaan fii anfusikum nafafyaalkiina dhexdeeda ah, ow amase tukfuuhu aad qarisaan, yuxaasibkum bihi llahu ilahay waa idin xisaabhaya. wixi aad muujisaan iyo waxaad qarisaan ilahay waa la socdaa, waa idinkula xisaabtamahaya. fayakfiru wuu dhaafi liman yashaau qofku doono waa u dhaafi, wayucadibu wuu cadaabi man yashaau qofku doonana wuu cadaabi. wallahu ilaahi calaa kulli shayin shay kasta qadiirun qaadirun kii kala weeyaan. casharkeena maanta intaasuu koob yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullah. kan xaqa leh iyo kan xaqa lagu leeyahay midna yuusan dhibin. dhibiddaa waxaa ka mid ah inuu qofka horaba markhaati furto ama u qariyo ama u bedelo siday arrintaana ugu sheego. nooc kastaba dhibka ha ahaadee asaguna yuusan dhib meesha la yimaado. haddaba meeshii isdhib baa la diidahayaa. labada dhan midnaba inuu ka yimaado lama ogola. qoraagaa iyo markhaatigaas kaa markhaatiga ah ayagu wax dhibin, ayagana yaan la dhibin. markii sidaa ilaahay uu caddeeyey, ilaahay wuxuu leeyahay wain tafcaluu haddaad fashaan waxaa laydinka reebahayo haddii aad fashaan ee isdhibidda ah, fainahu asagu fusuuqun dhaaca ka bixid weeyaan. laaxiqun bikum adinkaydin haleelay. dhaaca ka bixid iyo fisqi adinku aad ku dhacdeen ayay noqonaysaa. waxyaalkaa laydinka reebahayo haddii aad ku dhacdaan ad samaysaan oo wixii laydin barahi aad ka dhigtaan, waa dhaaca ka bixid iyo fisqi adinkaydan haleelay baa ilaahay leeyahy. wattaqullaha alla ka cabsad oo daacada ilaahay ha ka bixina. waxa ilaahay idin farahayana fartoo, waxa ilaahay idinka reebahayana ka har. taabaa dantiisa aakhira iyo dantiina adduunyada ay ku sugan tahay. wayucallimukum allahu ilaahay waa idin barahayaay diintiisa shareecteeda iyo axkaamteeda iyo aadaabteeda iyo dantiisa siday tahay ayuu idin barahayaay idin tilmaamahayaay. rabbi ka cabsadoo sidaas ilaahay idin barahayo u raaca. wallahu ilaahay bikulli shayin shay kasta caliimun kii og weeye. ilaahayna wax ka qarsoonaan mahayaano. kii amarkiisa fartoomhaya ka codsanhaya iyo kan ka leexleexanhaya labadaba ilaahay waa ogsan yahay. marka ka digtoonaada inaad wixii ilaahay farahaya ka leexleexataan inay fartoomi weydaan. wixii ilaahay idinka reebahaya inaad ku dhacdaan ka digtoonaada. ilaahay waa idinla socdaayo waa idin og yahay. wain kuntum haddaad ahaataan calaa safarin safar dushi oo walan tajiduu idin helin kaatiban qoraa idin helin, farihaan rahan maqbuudatun oo la kala
dhexdooda tastawfiquuna biha aad ku kalsoonaanaysaan. haddii safar aad tihiin oydan helin markaas dadkaa safarka ah ruux wax u kala qora ama alaabtii iyo aaladii wax lagu qori lahaa ee lagu qabsamaan lahaa ay waayaan, rahan oo la qibdaysiiyo oo la kala ninkii rahanta ama daynka laga qaaday gacanta loo geliyo la qibdaysiiyo, taa ayaad ku kalsoonaanaysaan. rahantu waxaa weeye qofka daynta laga qaadanayo wax qiimo leh loo dhiibo oo hadhow haddii dayntii loo soo celin waayo waxa ayaga u qaato bay u qorto. taasaa rahanta lagu jeedaa. marka haddii qoraagii la waayo oo safar aad tihiin oo ruuxii wax diin kalo qori lahaa aad weydaan, daynna ay meeshii timaado ku mucaamalootaan kala dayn qaadasho, rahan oo la qibdaysiiyo ruuxii rahanta daynka laga qaatay, kaasaad ku kalsoonaanaysaan oo hadhow xuquuqdii lagu ilaalin karayaa. haddaba rahanta waxaa lagu qayday, safar baa lagu qayday. kolkay sharciga mabaadidiisa loo noqdana waxaad helaysaa in culummada iyo islaamkuna isku waafaqsan yihiin in rahanta ay iska bannaan tahay iyada oo safar la ahayn. xataa nabigeena sala allahu calayhi wasalam markuu dhimanayay waqtiyadaa waxaa jirtay cabuurbureedkiisii inuu rahan yaalay ee nin dayn u ka qaatay ugu rahan dhigay isagoon safarna ahayn. marka waa wax sugnaaday ee sunnada ku sugnaaday ee aasaarta in rahanta ay iska bannaan tahay iyadoon safar ahayn. halkaa markaa aayaddu waxay guddaa in ay safar ku qayday, wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaan maqbuuda. haddaba waxaa sidaa loogu qaydayaa qoraaga waayidiisa la waayo ayaa ugu badan in muxuu ahaa safarka waqtiga leeyahay ama aalaabta wax lagu qori lahaa la waayo. sidaasaa markaa loogu qaydayaa. ta kalena sunnada iyo akhbaartii mabaadida islaamka ayay ku sugnaatay rahantu iska bannaan tahay iyadoo la degan yahay. fain amina hadduu aamino bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale uu aamino oo waxba qorinta uusan ka samaysanin daynkii u bixiyey, rahanna uusan ka qaadanin rahan la-aan iyo qoris la-aan daynkii uu iska siiyo, falyu'addi kadbu alladii kii tumina la aaminay amaanatahu amaanadiisa amaanadii lagu aaminay kadbu walyattaqi allaha allaha ka cabsado, rabbahu rabbigiisa ka cabsado oo khiyaano isan meeshi keenin. haddii meeshii wax qoraal ah uusan imaanin, rahan qaadasho ayna imaanin, qofkii xaqa lahaa ee daynka bixinayay kalsani ku kalsan yahay qofka daynka ka qaadanaya uu isaga siiyo daynkii wax qoraal oo iska reebtay ayadayna jirin, ilaahay wuxuu ku tirtirsiinayaa kan daynkaa qaaday ee la aaminay amaanadii uusan allay. falyu'addi habkuutaa laleeyaha alladii kii tumina la aaminay amaanatahu. haddaba amaanadaas waxaa loo wadaa sida loo aaminay wuxuu ee daynku amaanadii wax gaar ahaa lagu magacaabaayo mamnuuno iyadu ma aha, laakiin daynku mamnuun weeyaan kol kasta. marka waxaa ammaano loogu magacaabayaa aaminada la aaminay darteed baa loogu magacaabaya ammaano daynki. rabbiga ha ka cabsado, walyattaqi llaha alla ka cabsado oo sida loo aaminay waxa uu oofiyo oo xaqi uu oofiyo yuusan nusqaan iyo khiyaano iyo khilaaf markaas dabadeed keenin. rabbahu rabbiga ha ka cabsado lagu siakidaya rabbigii barbaariyey ha ka cabsado uusan khiyaano meesha keenin. haddii la aaminay qoraan rahan la-aan markhaati la-aan masalan haddii daynkii lagu siiyo sidaas loo aaminay amaanada yuusan khiyaanin haguda amaanada allaha uga cabsado inuu amaanadan khiyaano rabbigiisa ah. walaa taktumu shahaadata markhaatiga ha qarinina, waman yaktumhaa qofkii qariya markhaatigii fainahu asagu aasimun qalbuhu qalbigiisu kii badbaadiyo. wallahu ilaahi bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan calayhim kii
مركلة أيام الخاطئي لو نروس بريدية هري وحن نروس الشيء الخاطئ تدونا يوم الخاطئ لو يروح على الخبران أما وحالك ركلان وحالك عمران وحالك الكريم الخاطئات يديني الخاطئ ومكان تديني الخاطئ اللغة دوني تدويا تخباري تخبار يبين الخاطئ تدويا مركلة لمسوبرين يالليه مرخاتي حقرنين بس مرخاتي قاضيو مرخاتي حقارتي مرخات فريسان حقرنين مرخاتي قاضيو وحقرن تعالى نبتيني نسير أنا بتدلو ورسلي أخطوائي سيامي وشي صاحب قمينين مكا عبدي يبقى إذا مكالا رحتين يقفك قرية ومن يكون مع بطي قرية مرخاتي يسيبها أن يشيء تهيدة بدلة قرية قفكي سلاط نغية بين شنمي بين وطب قلبي يسوء أنا أبدأ قلبي كم حتى بماشي الأورا لما تبدأ أيام قلبي لك عبري قلبي سيدباب لي قلبي هو ماشي قفوة تقومي تبيا وهدو مثال قفوة لك ماشي مثال هدو وناك تنالا قفوة ماشي سيودا يوشي سيودا أي وناك تنالا مركع قلبي كذبات البالي هذا الأب هذه الرسالة قلبي سيدباب قلبي تمكن والله إلهي بما تقدرون وحد عمل قريسان عليكم والله وحد قريسان وحد باللسان انداد وحديثان وحل وحد قريسان والإله وإيه مركا مرخاتي قريسان مرخاتي يسوها لبابد ووجبي يكترجان هاي يلك مدالة دي هباب النسان وحل وحد مدالة هباب النسان جميع كريسان قدر وقتي مركا كريسان labadii meesha ugu dayamaya markaa qofkii sababkooda dadkiisu garaya ilaahay woona qaadaya lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi ard lilaahi ilaahi wuxuu leeyahay maa fi samaawaati samaawaadkigooda ku jira iyo wamaa fi ard allah khayr wixii wax kasta asaga iskale marka waxa laydin baraya adinka sidaas asaga waxba idinka kama baahna way haddaad saan maa adusaan fii anfusikum سوسيالكنا بحريدا أو أمس تطلب أفقارسان يحاسبكم وإن حساب يحاسب إنسان يوم قرسان إليه ولسنا وإن كل حساب صحيح فيدعو ناس لمن يشاء فقدون وأولاد ويعذبه كذلك من يشاء فقدون وكذلك والله إله على كل شيء قدير قادر ملوكيا عشر كلمات تشكر إليه والسلام عليكم ورحمة الله. عشر كلمات فقط الله هي آيات لبض بقول سبيت يسنات سورة البقرة كاملة وأنا آياته أقدم به سورة القرآن كسورة دي سورة بيريد اللهم قعابة سورة البقرة آياتها أقدم به سورة ندهي هي آياته اللهم باللودين اسم مناسب ويه aayadihii lagu bilowday waxaanu arkaynay dadka mu'miniinta iyo tilmaamahooda
rasuulka loo soo dejiyey dhammaantii waa rumeeyeen mu'miniintu ayagoo kale saarsaaraynin. Ha ahaado suuradan axkaamta badan oo aan ku soo sheegnay, ama qur'aanka kale axkaamtii macaanida iyo qasaska iyo wax alle waxa ku jira ha ahaadeen, ama caddaynta kale rasuulka xaggiisa ka soo gaaraysa, qowl iyo hadal uu ugu caddaynayo, ama ficil iyo camalka ugu caddaynayo ha ahaatee way rumeeyeen dadka mu'miniintuuna. kullun ku kasta aamana waa rumeeyey billaahi ilaahay buu rumeeyey, wa malaa'ikatihi buu rumeeyey, wa kutubihi buu rumeeyey, wa rusulihi buu rumeeyey. ku kasta ee mu'miniintii ah waa rumeeyey, alluu rumeeyey, ee rasuulkii uu la jiro sala allahu calayhi wasalam. alle ayuu rumeeyey ku kasta, midnimadiisa, qudradiisa, nicmayntiisa, sifaadkiisa oo idin waa rumeeyey. ku kasta wuxuu rumeeyey malaa'igta ilaahay buu rumeeyey, addooman ilaahay uu abuuray, faraya wixii ilaahay uu faro, aan marnana caasiyeynin in ay yihiin iyo sidii ilaahay uu ku tilmaamay ay yihiin way rumeeyeen. oo malaa'igtana ku kastoo mu'miniinta ka mid ah, malaa'igta waa rumaysan yahayoo waa rumeeyey. wa kutubihi kutubtiisana waa rumeeyey, mid kastoo mu'miniinta ka mid ah wuxuu rumeeyey kutubta ilaahay xaggiisa laga soo dejiyey oo idin tawreed, injiil, zabuur, xaashiyadii kaleeto ee rususha ila qaarkeed ilaahay usoo dhiibi jiray oo muxuu ahaa risaaladooda loogu caddayn jiray waa rumeeye. qur'aanka dhammaantiis kutubta ilaahay oo idin way rumeeyeen, mid kastoo mu'miniinta uu rumaysan yahay. wa rusuluhu rususha ilaahayna waa rumeeyey ku kasta, rususha ilaahay uu soo diray oo idin ma kala soocahayaan, way wada rumaysan yihiin. taa waa tilmaanta mu'miniintu ay kaga socan yihiin dadka kaleeta ehlu kitaabka sheeganaya. masalan kolkii la soo qaado kuwa yuhuudda ah ee sheeganayaan inay tawreed ay haystaan, inkastay bedeleen, taxriifiyeen, ka leexdeen, tawreedda dabteedii ay ku xiran tahay qur'aanka, hase yeeshe ayagu ay ka duseen. ilaa diinta ilaahay oo dhan waa mid ilaahay xaggiisa ka timid oo isrumaynaysa oo xalqado xiriiro ah, inkastay ka duseen waxay sheeganayaan inay haddana raacsan yihiin. isla waqtigaas lagama hayo inay kutubta ilaahay oo dhan rumaysan yihiin, lagama hayo. injiil way beeniyeen ayagu, nabi ciisena way beeniyeen, nabi maxamedna way beeniyeen. marka xalqadihii isku xiraa ee diinaha ilaahay ahayd sidaas ayaga uga baxeen. ree qolooyinka kalena ee ayaguna sheeganayaan injiil inay haystaan, sidaas oo kaleeto waxay beeniyeen kitaabka qur'aanka ah oo kitaab ilaahay ah ayay beeniyeen. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee rasuul ilaahay soo diray ah ayay beeniyeen. maadaama ilaahay mid yahay, waxa rususha soo diraya isaga yahay, kutubta waxa soo dejinaya isaga uu yahay, kutubta iswada kamilayso. markay rusushii qaar beeniyeen, kutubtiina qaar beeniyeen, weliba rususha kii ugu dambeeya rususha lagu gunaanaday, caalamkoo dhan loo soo diray, kutubta kii ugu dambeeyey ee kutubtii dhan lagu gunaanaday, lagu soo khulaaseeyey, macaaniday kutubtii dhan lagu soo guuriyey, laga dhigay mid u soo bara ilaa yowma alqiyaama. markay intaa beeniyeen way ka duseen ayaguna xalqadii. marka kutubta ilaahay oo dhan rumayntooda, rususha ilaahay oo dhan rumayntooda waa tilmaanta mu'miniinta ay la gaariyeen. ma kala saarsaarayaan. nabi ciisey rumaysan yihiin, nabi muusey rumaysan yihiin, tawreed bay rumaysan yihiin, injiil bay rumaysan yihiin, qur'aankay rumaysan yihiin, nabi maxamed bay rumaysan yihiin. kutubtii ilaahay uu soo diray iyo rusushii uu soo dejiyey iyo rusushii ilaahay uu soo diray oo dhan bay rumaysan yihiin. qaa'ilayna ayagoo odhanay laa
adeecnay adeecid ah u camal falid iyo raacid iyo u hoggaansan ayaan adeecnay. saas ayay mu'miniintu yidhahdeen. غفرانك ربنا وإليك المصير. haddaba ducada ugu habboon oo dadka mu'miniinta ayaa halkaas ilaahay ugu barayaa subxaanahu watacaala. markay sidaa yidhaahdeen oo inay maqleen adeeceen ay sheegteen, markaa ilaahay u baryahayaa dembi dhaaf ay ka baryahayaan ayagoo tirsan inay arrintu ilaahay xaggiisa u ahaanayso. haddaba qofka mu'minkaa markuu ilaahay baryahayo aadaabta baryada waxaa weeyaan ilaahay inuu ammaano subxaanahu watacaala. waxa uu mudan yahay ammaan uu ku ammaano. markuu sidaa u ammaano markaa inuu muujisto asagu muxuu ahaa markaas sida ilaahay uu u adeecahayo. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala addoomankaygu ha ajiibeen waa ajiibay. saasoo kale falyastajiibuu lii walyu'minuu bi. markii ilaahay uu soo sheegay idaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaani. markii ilaahay sidaa uu yidhi waan ajiibaa kan i baryahaya hadduu i baryo. markaa wuxuu yidhi falyastajiibuu lii aniga ha ajiibeen anigana anigu hadday i baryaan waa ajiibaya. walyu'minuu bi ha i rumeeyeen. sidaasa ilaahay yidhi. markaas waxay caddaysanhayaan ama aadaabta baryada aadaabteedu ay tahay inaad adigu daacad muujiso, inaad ilaahay adeecayso oo muujiso aan muujis keliya aan ahayne daacadnimo kaaga soo baxaysa. marka waxay yidhahan samicnaa waanu maqalnay wa aطacnaa waana adeecnay. gufraanaka nas'aluka rabbiga waan ku su'aalanaynaa. gufraanaka dembi dhaafidaada rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow. ilayka adiga xaggaagaana almasiiru ahaashadu ay tahay umuurtu xaggaagay u ahaanaysaa. xukunka adiga iskale. marjaca iyo meesha loo noqonayo xisaabta meeshay ahaanaysana xaggaaga weeyaan. adaa ilaahu keliga xaakim ahaan haya maalinta qiyaamada. saad waqti kasta keliga adigu arrinta isaga leedahay. laa yukallifu allaahu ilaahay ma kallifo nafsan naf ma kallifahayo ilaa wuscahaa taagteeda mooye. haddaba ilaahay dadka mu'miniinta wuxuu ugu bishaaraynayaa inuusan ku kallifaynin waxay awoodaan mooye wax kale inuusan ku kallifaynin. weliba waxaa jirtay aayad ku jiray ama casirkii shalay aayad ku jirtay oo xoogaa dadka mu'miniinta ah cabsi gelinaysay. wa in tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi llah. haddaad wax muujisaan waxa naftiina ku sugan aad muujisaan ama qarisaan waxa naftiina ku soo dhacay ilahu waa idin xisaabay. haddaba aayaddaa waxaa laga fahmayay wax alla wax nafta ku soo dhacahay muxuu nafta ku sheekaysanayso weligiisan soo bannaan bixinninbe wixii wax uu soo muujinaya ahaaninbe in laisu xisaabayo. marka halkaan ilaahay wuxuu noogu caddaynhayaa qofku wuxuu tari kara mooye wax kale inaan loo ciqaabayn. waxyaalkaa nafta ku soo dhacaya naftooda ayaa kala qaybsama. wax qofku kari karo inuu iska reebo iyo wax naftiisa intay makansadaan oo dhib kasta markaa fulintooda caasma intuu la yimaado waxayadaysan markaa waa loo qabanaya. laakiin waxyaalka khawaatirta ku soo dhacaya oo markaa haddana ay surooda inay naqado nafta ayna kusii daahin. weliba qolka qaarkood waxunba naftana kusoo yara dhaceena khaadir ahoo nafta soo marhaya hadduusan markaas iska reebintooda awoodi karin ee wax uu kusoo dhacay ay yihiin asuusan u qastin waxa ayagaa samayntooda ilaahay waa ka casinayaayo ilaahay ma kallifahayo nafta waxay awood leedahay mooye wax kale ku kallifi maayo. lahaa waxay leedahay maa kasabad waxay kasbato. naftu waxay kasbato oo min khayrin khayra ayadaa iskale wax kallifhaya ma aha. ilaahay waa ka sawaabsiinhaya. wa calayhaa korkeeda waxaa ah ma kasabad waxay kasbato oo min sharin shar ah. wixii sharahay kasbatana ayada dusheeda weeyaan. haddaba fiiri khayrka kasbashadiisii waxaa laga cabiray kasabad baa layidhi. ta iyo lagama xiriirinin. sharka kasbashadiisiina kasabad baa laga cabiray. halka culimadu waxay yidhahdaan waxaa laga garanhayaa khayrka iyo sharka kasbasho mid walba kasbashadiisa in ay kala fudud yihiin oo xataa khayrka u fudud yahay. qof kolkuu sharka kasbanhayo sharka dhibaato badan iyo qowl badan iyo balaayooyin badan ayuu leeyahay. laakiin khayrka waxaa weeye kasbashadiisu fitradeedu la socdaa. marka dabeecadii ilaahay ku abuuray fitradeedu la socdaa. waxba muxuu ahaa dhibaata ama laha.
xaaladiisu ay dhib nagu tahay hanuu xambaarin kamaa xamaltow saad ugu xambaartay cala aladiina kuwii min qablina naga naga horreeyey adigu xambaartay sidaasoo kaleeto camal mudadoos hanugu xambaarin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow walaa tuxamilnaa hana xambaarsiin hanugu kallifin anaa laa tukallifna hanugu kallifin maa laa daaqata lanaa waxaan awood u lahayn bihi asaga waccafi cafi cannaa xagga yaga iska cafi waqfir dhaaf lanaa naga noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta adigu mawlaanaa sayidkayagii baa tahay fansurnaa noo gargaar cala alqowmi qoomka nooga gargaar qoomka dushooda noogu gargaar ulifta naga sii alkaafiriina ee kaafiriinta ducada waa mid ilaahayna baraya wuxuuna noo baraya inuu naga ajiibo waxaan la wariyey aayad ama ducada jumlo kamid a ku yidhaahdaba in muxuu ah loo jawaabayo ilahay xaggiisa lagu eranayo waan falay waa idin yeeray casharkeena maanta intaasuu koog yahay wasalaamu calaykum nebigu intuu soo haajiray maka uu ka soo haajiray madiina uu soo haajiray surooyinka ayay ka mid tahay hadalkeeda sida uu ku saabsan yahayna waxa weeyaan ilaahay midnimadiisa subxaanahu wa tacaala waxaadna kaloo arkaysaa in muxuuha lagu qambixi doono qoyskii ree ahlu cimraan taa oo nalagu tusaalaynhayo ree masiixiyiin ama ree nasaara habowga ay ka hadlaadeen ama nisbaynta ay u nisbeeyeen nabciisa waxyaalkaan u habboonay ayaa qoyskiisa horay laga soo sharxaya hooyadii maryamo siday ku dhalatay qoyskaan sida uu ahaa farcii hore ee nebi ibraahim iyo aalkiisii aadan baa laga soo bilaabay nebi aadan aali ibraahim aali cimraankaas reer cimraankaas maryama sidii muxuu ahaa ee hooyadeed ay u bariday sida ay ku dhalatay sida ay ku kortay markaas dabadeed waxaan arki doonaa nebi ciise dartiisa sidau ku dhashay sidau muxuu ahaa xaalkiisu ahaa ilaa laga gaaro 80 aayadood xaalka ayay ku saabsantahay isku mar